habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn kiisaskii ugu horeeyay COVID-19 ayaa laga helay xerada qaxoontiga caalamka ugu weyn ee Bangladesh iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka WHO na ka digtay in laga yaabo inaan fayruska koronuhu weligiiba bixin warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa digniinta hay'adda caafimaadka ee ah inaan fayrusku weligii baxaynin warar kalena waxaa ka mid ah takooridda iyo cambaaraynta dadka qaaday koronaha ayaa laga cabsi qabaa inay yeelato saameyn ka daran fayruska waxaan warbixin idinka haynaa baadari reer Hayti ah oo naftiisu halis gashay kadib markii loo hanjabay iyadoo laga helay fayruska corona caawiyadooda khamiistana waxaanu kaga hadlaynaa sida takooridda iyo cambaaraynta bukaanka safmarka COVID-19 looga hortagi karo isla markaana loo barbar istaagi karo dadka fayruska corona haleelo kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa BBC London caawiya caalamka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in laga yaabo in aan weligiiba fayruska corona caalamka ka bixin oo inala joogo taasi oo ay tahay bay yiraahdeen in dadku bartaan inay la noolaan karayaan fayruskaasi khabiirka caafimaadka ee hay'adda Michael Ryan ayaa ka digay in la saadaaliyo markaas afmarku bixi doono isagoo saxaafadda la hadlayay ayaa uu sheegay in cudurrada qaar sida HIV fayruska ah iyo jadeecada oo aan weli dabar goynin in kasto loo helay buuri talaalo waxaana uu yiri Michael Ryan we have a new virus waa virus cusub oo dadka bani aadamka ah soo dhaxgalaya markii ugu horeysay marka way adag tahay in la ogaado inaynu ka adkaan karnay in kale viruskan waxa laga yaabaa inuu noqdo wax iska socda oo ku dhex jira bulshooyinka taasina waxay keeni kartaa inaan viruskan weligiiba inaga tagin and this virus may never go away dalka Bangladeshna dhakhaatiirta dawladda ayaa sheegaya in 2 qof oo Rohingya ah laga helay COVID-19 waxa ku nool yihiin xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka waa kiisaskii ugu horeeyay laga soo wariyo xeryahaasi cidhiidhiga ah ee Cox's Bazar labada bukaan ayaa la karantiileeyay waxa kale oo karantiimo guud la geliyay 2,000 oo qof oo kaamamkaasi deganaa sidaas oo ay tahay saynisyahannada caalamka ayaa weli iyagu ku jira baadigoobka talaal fayruskaasi lagula tacaalo dalka New Zealand ayaa isagu soo afjaray xayiraadihii bandooyadii kumanaan ganacsi ayaa dib loo furay oo xidhnaa tan iyo bishii March dawladda ayaa dadka ku dhiirigelisay inay raacaan nidaamka kala fogaanshaha bulshada iyadoo bay yiraahdeen ay yar tahayba faafista viruska dalka Japan ayaa iyaguna waxay qaadeen xaaladda degdega ah ee dalkaasi lagu soo rogay 39 deegaan oo ka mid ah 47ka maamul deegaan ee dalkaasi ayaa laga qaaday xayiraadaha dadka qaadaya fayruska ee dalkaasi Japan ayaa aad hoos ugu dhacay magaalada Tokyo caasimadda laakiin wali xaaladda degdega ah ayay ku jiraysaa ilaa bisha dhamaadkeeda xagga Afrika haddaynu soo gudubno dalka Burundi ayaa caydiyay wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo 3 khabiir oo kale waxaana loo sheegay inay dalkaasi ka baxaan warqad ku taariikhaysan bishan May 12keedii ayaa dawladda Burundi ku eedeysay hay'addaasi caalamiga ah faragelin ay ku hayso habka loo maamulayo safmarka laakiin WHO waxay sheegeen inay caawimo diyaar u leeyihiin Burundi we remain very willing to continue to collaborate waxaanu aad u rajaynaynaa inaan la shaqayn doono Burundi in the African region oo ah dal ka tirsan WHO qaybteeda Afrika their response to this COVID-19 si aan u caawinno dadaalada ay kula jiraan COVID-19 oo ay dadkooda ku badbaadinayaan waxaan kaloon Burundi kala shaqayn doonaa arrimaha kale ee caafimaad ee taagan annagoo iyaga la kaashanayno on which we have been collaborating with Burundi faafitaanka fayrusku waxa uu horseeday haddaba walaac badan dunida daafaheeda iyadoo dad badan ay ka walwal qabaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen safmarkani waxaa soo baxaya warbixino dad la kulmay dhibaatooyin af iyo adinba isugu jira maadaama ay fayruskaasi qaadeen amaba looga shakisan yahayba qaaradda Afrika daafaheeda sheekooyinka noocan ah ayaa dadka xasuusinaya sidii looga falceliyay ee loo cambaareeyay xanuunadii HIV-ga iyo Ebola balse iminka waxaan u talaabaynaa dhanka kale adduunka dalka Haiti nin ayaa dhibaato ba'an la kulmay isagoo naftiisa u baqay kadib markii laga helay fayruska corona isla markaasina ay dadka qaar uba dhaarteen inay noloshiisa khaarijiyaan Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa inoo haya hanjabaad ayaan la kulmay dariskayga oo dhan baa isugu yimid inay i dilaan
baadariga Burel Fontles waxa weli maskaxdiisa ka go'ila hanjabaadihii loo geystay kadib markii uu ku dhacay fayraska corona. ninkan Haiti u dhashay naftiisa ayuu u baqay laakiin fayraska kama cabsan ee waxa dib ku hayay bulshada xaafadiisa Port-au-Prince ee qoryaha sita oo uu sheegayo in naftiisa halis ku yihiin. réseaux sociaux degetan connaît que nous sommes malades oo dhan ayaa ogeyd inaan xanuunsanaa waxay ugu eedeynayeen inaan cudurka dadka u keenay marka qof walba ayaa jidka ii taagnaa mar waxaa dhacday inaan baabuurkayga ka cararo aan bas qaato donc la quitté machine là qu'on est là moi on pas d'ap vide qui passé qui était en quête de monde donc moi dit il pas la peine pour chercher l'autre monde viruska corona wax ma dilo laakiin kuwa dadka in la takooro doonaya ayaa sababa nacayb in bulshada ku cambaarayso kuwa daabacaya natiijada beenta ah kuwa leh ninkan hala dilo taas ayaa aad ii dhaawacaysa ma ahayn in sidaas la ila dhaqmo inkasta oo BBC-du aanay xaqiijin karin waxa uu sheegayo in ay ku dhaceen takoorid noocaasi oo kale ah ayaa dunida laga soo sheegaya dad badan oo cudurku ku dhacay ayay dhibaato ka haysataa iyo shaqaalaha caafimaadka oo wajahaya ceebayn la xiriirta cabsi iyo jaahilnimo. hay'adda caafimaadka ee WHO waxay ka digaysaa in takoorkani uu keenayo in dadka cudurku ay qarsadaan oo aanay daryeel caafimaad raadsan taasi oo sii kordhinaysa faafitaankiisa. Haiti oo ah dalka ugu saboolsan koonfurta Amerika ayaa takoorkan waxa uu noqonayaa walaac weyn. hay'adaha xuquuqda aadanaha kiiska baadarigani lama yaabana. siyaasiyiinta laguma kalsoona mar walba waxbay sheegaan inkastoo ay xaqiiqdu tahay in bulshadu ay shaki ka qabaan waxa ay sheegayaan. waxaa sidoo kale ay la xidhiidhaa qorshe la'aanta sida meydadka loo aasayo sida goobaha karantiilka loo tegi lahaa. waxaan isleeyahay taas ayaa keenaysa cabsida iyo takoorka laga qabo xarumaha dadka cudurka qaba. takoorka iyo cabsida dadka xanuunsada ee Haiti ma ahan wax cusub. 2010 markii daacuunku ka dilaacay ku dhawaad 10,000 oo qof ayaa u dhintay. baadariyaasha ayaa lagu eedeeyay faafitaankiisa. ugu yaraan 45 baadari ayaa dad qamaamaya ay dileen. kuwii xasuusta xilligaasi ayaa haddana u yimid in ay u duceeyaan dadka qaba cudurkan cusub. nasiib wanaag booliis ayaa jooga si ay u difaacaan baadariga Fontles kadib markii cudurka laga helay. laakiin inkasta oo la ilaalinayo haddana weli naftiisa ayuu u cabsanayaa taasi oo keentay in isaga iyo qoyskiisaba ay la sii joogaan asxaabtooda intii muddo ah. bal markan aynu eegno qodobada kale ku jira warka caawa. duufaan xooggan oo dabaylihiisu ay jarayaan 180 kilomitir saacadiiba ayaa jiiday qaybo ka mid ah dalka Philippines. Typhoon Vangang ayaa imika ku jihaysan deegaanka Visayas halkaasi oo 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin. digniinaha fatahaadaha iyo dhulgo'a ayaa halkaasi laga soo saaray. kooxaha gurmadka ayaa sheegaya inay ku dhaqmi doonaan habka kala fogaanta bulshada si looga hortago faafista COVID-19. sharikadda diyaaradaha ee dalka Qatar Airways ayaa shaqada ka ereysa 9,000 oo qof oo u dhiganta 20% shaqaalahooda caalamka. sababtu waxa weeyaan beerada safmarka coronavirus. sida shirkadaha kale ee diyaaradaha waxa aad hoos ugu dhacay rakaabkii shirkadda fuulaya waqtigan. agaasimaha guud ee shirkadda Qatar Airways ayaa sheegay in karantiimada 14 cisho ah ee wadamada qaar ay rabaan inay ku soo rogaan dadka safraya in shirkadaha diyaaradaha la degi doonto. kooxaha islaamiyiinta ee ka howlgala gobolka saaxil ee waqooyiga Afrika ayaa ka faa'iideysanaya iyaguna dilaaca fayraska corona oo sii kordhiyay weeraradoodii. sidaasi waxay yidhi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaana uu ku baaqay in ay wada shaqeeyaan dhammaan xoogaga kala duwan ee ka hortagga kula jira islaamiyiinta halkaasi ka dagaalamaya. waa kan Junaidi Farax. dalka Burkina Faso halkaasi oo ay horay isbedelada cimilada iyo maleeshiyaadka islaamiyiinta awgeed ay barakiciyeen dad gaaraya 800,000 sanad gudaheed balse iminka coronavirus ayaa noqday caqabad hor leh oo ku soo biiray bulsho awalba qarka u saarnayd macluul. arrintani ayaa carqaladaynaysa dardargelinta gargaarka bini'aadanimo. Sawadogo Salam ayaa hadda ku nool tuulada Kayo ee Burkina Faso kadib markii ay maleeshiyad hubaysani weerar ku qaadeen tuuladiisa halkaasi oo ay ku dileen dad fara badan oo uu deris la ahaa. laakiin isagu wuu ka badbaaday kadib markii uu keligiis orod kaga baxsaday isagoo ka soo tegay dhammaan qoyskiisa oo dhan. laakiin dabadeed qoyskiisa ayaa dib ugu soo biiray. halkan ayaan orod ku soo gaarnay si aan uga baxsanno dalka.
haweenka ayaa mar dambe iyagana naga daba yimi alaabteenni iyo qalab waxaan lahayn waanu ka soo tagnay bilowgii bishii maarso burkina faso waxay diiwaan gelisay labadii kiis ee ugu horreeyey ee covid-19 dabadeedna bil gudaheed waxaa fayraska qaaday 300 oo qof iminkana waxay noqotay waddanka ugu waxyeelada badan afrika oo dhan hay-adda cunnada adduunka ayaa hadda si rasmi ah u howlgashay salaamna waxaa la siiyey lacag kaash ah iyo weliba cunto taasoo u suurtagelinaysa in uu quudin karo qoyskiisa qaramada midoobay ayaa halkan u soo dirtay shixnad gaaraysa 16 metrik tan oo dawooyin iyo qalab caafimaad ah laakiin baahida gobolkan ayaa aad u weyn hay-adda WHO ayaa daadgureynaysa qalabka caafimaad iyo dhammaan shaqaalaha gargaarka laakiin dabcan waxaan u baahannahay taakulayn si aan hawsha u sii wadno ciidamo gaaraya 5,000 oo ay ku bahaysan yihiin waddamada afrikaanta ee lagu yiro G5 kuwaas oo kale ah burkina faso mali mauritania niger iyo jad oo ay weheliyaan ciidamada faransiiska ayaa ka hortegaya kooxaha islaamiyiinta waxaa iyagana ka qaybgalaya ciidamada qaranka iyo kuwa maxalliga ah iyo ciidamo kale oo faransiis ah oo halkan horay u deganaa iyo 15,000 oo ciidamada qaramada midoobay laakiin madaxa qaramada midoobay wuxuu ku booriyey in ay ciidamadan isla shaqeeyaan dabadeedna ka hortagaan in marxaladdan bini'aadanimo ee halkan ka jirta aysan ka sii darin weli waxaa inoo soo socda dooda khamiista caawa waxaanu kaga hadlaynaa sida takooridda iyo cambaaraynta bukaanka safmarka covid-19 looga hortegi karo isla markaana loo barbar istaagi karo dadka qaba soo dhawaada daawadayaal weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka iyo cabdiraxmaan bidhaan balaadin xusuusiyo wararkii ugu waaweynaa caawa kiisaskii ugu horreeyay covid-19 ayaa laga helay xeryaha qaxoontiga ee caalamka ugu waaweyn ee bangaladesh ku yaalla hay-adda caafimaadka adduunkana waxay sheegaysaa oo ay ka digtay in laga yaabo inaan fayrusku weligiiba adduunka ka bixin
takooridda iyo cambaaraynta dadka qaaday koronaha ayaa laga cabsi qabaa inay yeelato saamayn ka daran fayruska iyadoo dadka meelaha qaar fayruskaasi ay la kulmayaan dhibaato af iyo adinba isugu jira fayruska sidii aynu ku soo aragnay warbixinihii hore waxaa jirta in uu adduunka kusii fidayo taasina waxay keentay in meelaha qaar dadka la takoorayo islamarkaasina ay la kulmayaan aflagaado iyo adin iyo afba waxaa barnaamijkeennan khamiista dooda aynu ku eegaynaa bal sida takooristaas iyo cambaarayntaasi ee wax looga qaban karo islamarkaasina loo berber istaagi karo dadka uu koronuhu haleelay waxaa marti igu ah dr yuusuf cumar oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda sawas oo igaga soo biiraya south hall london iyo mawlid xujaalosna weriyo wax ka qora arrimaha covid-19 oo isna london jooga labadiinuba soo dhawaada waan dhognahay bidaan waa tahay haddaan yuusufow kugu horeeyo dr yuusufow adu waxaad noo sheegtay in covid-19 uu ku haleelay bal inooga sheekee sidii aad ku ogaatay iyo sida wax u dhaceen marka koowaad bidaan adiga iyo muslimiinta soomaalida ee daawanayaba aad iyo aad baad umahadsantihiin una salaamantihiin ramadaan kariim yes cudurkan markuu aan dareemay inuu mataqaanaa cudurka ayaa dhakhaatiirtan la xiriiray dhakhaatiirta waxay dhaheen astaamihiisii weeye waxa aad sheegaysaan haddii urkii ay idinka tagtay dhadhankii uu idinka tegey indho iyo xumad soo noqonaysa ay mataqaanaa ay tahay lafa xanuun iyo daal aad dareemaysaan waa asagii marka 14 habeen ama 14 maalmood jooga mataqaanaa guryihiina sidaasay dhaheen rather than that aniga noloshaydu caadi bay iska ahayd annaga aad nooguma adkayn wuxuu ahaa maaldi waxa la yidhahdaa ama mid mataqaanaa khafiifa saasay tahay shaqadaydana waanu shaqaynayay 14 maalmood ka bacdina noloshii caadi ayay noogu soo laabatay aad baad u mahadsan tahay dr yuusuf waa maasha allah caafimaadkaagu haddaan u gudbo mawlid xujaale adigu mawlid adna london baad ku nooshahay waan ognahay magaalada londonna xanuunku dee aad buu saameeyey markaad eegto dhinaca bulshadaad ka eegtay ka saxafi ahaan saameyn intee leg buu bulshada ku yeeshay xagga koorista iyo xagga iscambaaraynta iyo xagga kala shakiga maxaad ku micnayn karaysaa jawiga guud ee london iyo bulshooyinka mahadsanid bidaan jawiga guud saa sheegtay dhibaato badan baa ka taagan oo soomaalidii oo markii hore isku imaan jirtay oo maaragtay walaaltinimadii waxaa ka dhexaysay waa la kala shakiyey waa la kala cararay qof soomaali markuu ka hor yimaado ewel waad salaami jirtay hadda laakiin waxaa waaye waddada dhinaca kala maraysaan taasna waa isfahan jiro oo ay sababtay dhibaatada cudurkan uu leeyahay oo dadku ay kala qaadi karaan marka saskaas dadka soomaalida waxay kaga mid yihiin bulshooyinka kale ama madow iyo caddaan qofku ahaadaba waa la kala cabsanayaa waa la kala shakinayaa oo laiskuma soo dhowaanayo marka alxamdulilah aniga ilaah iga badbaadiyey balse dhibaato badan iyo maaragtay cabsi badan iyo welwel baa jirta waad mahadsan tahay mawlid dr yuusuf waad og tahay dalal badan baa iminka cudurka laga helo dadka soomaaliyada jaaliyaduna ku nool yihiin marka jaaliyado badan oo soomaaliyeed haddaad norway eegto haddaad sweden eegto haddaad ingiriiskan eegto dad badan oo soomaaliyeed oo tiro badan uu ku dhacay marka ma laga yaabaa in soomaalida halkaasi ay uga iman karto in lagu takooro ama lagu cambaareeyo cuduradaasi sidee bay kula tahay inay arrintaasi u xallin karayaan cusmaan waa saad u sheegtay waxaan la yidhahda cambaaraynta waa wax mataqaanaa guuda bini aadamku uu mataqaanaa ka siman yahay qolyahan xag jirka ah ayaa arrinta aad iyo aad baryahan mataqaanaa u boonbooniya ayagoo odhanaya cudurkani wuxuuba la yimid ama uu u dhow yahay dadka soo galootiga ah maadaama ayaga uu ku batay مثلا dadka nin kamid ah wuxuu qoray cudur soo galooto oo jeena ka yimid waxa uu leynayaa dadkii madowga ahaa ee muslimiinta ahaa iyo mataqaanaa iswiidna ku leynayaa marka arrinta runtii cabsi badan baa laga qabaa soomaalida in doorashooyinka lagu galo soomaalidu laba sifo oo waxay qabaan waxa la yidhahda vulnerability ama nugeyl ah oo ah marka waa muslimiin marka mataqaanaa waa madow marka isagoo takoorisay jirtay haddii haddana cudurkan uu kusii batay si gooni ayaa loo sii takoori laakiin si guud siduu u sheegay mawlid bini aadamku hadee jeer wuxuu isku dayaa inuu meel u saariyo wixii dhiga mataqaanaa yimaada isagoo ka cararaya asaga inuu xaggiisa ka yimid waxaynu ognahay matala madaxweynaha trump inuu markiiba jeyna mataqaanaa weerar ku qaaday xagga ugu saariyey jeyna naftigeedu inay maraykanka mataqaanaa weerar ku qaadan inay xaggaas mataqaanaa nooga yimid shiinuhu dadka afrikaankaasoo may weerarinaya wadankooda ku nool dadka qaar ay leeyihiin dadka afrikaanku iyo oo disadvantage dadka danyarka ayaa mataqaanaa laga hela ayaga mataqaanaa way u saariyeen marka innaga Soomaali ahaan waxay noo sii dheer dad waxaynu nahay u nugul waxa la yiraahdo takoorista dhaqankeena aad buu u xoog badan yahay
ku tiri kuteyntu waa nagu xoog badan tahay waan isu gudbinaa saameyna nolosheena way ku yeelataa waan gartay la taageeraa yaa la takoora aynu mataqaana ognahay marka takooris inagaga imanaysa ummadda kale iyo mid inaga dhexdeena runtii aad iyo aad u xoog badan oo labadiiba waa isu kambiireen waayo doctor yuusuf waan kugu soo noqonayaa mawlid xujaalaan gudbaya mawlid dhaqankeena soomaaliga caadigii sideebuu isaga laftigiisu qayb uga yahay adigoo ka hadlaynba dadka kale ee iyagu takooridda sameynaya wadamadan kale lagu noolyahay ama meelaha kale dhaqanka soomaaliduba in cudurkii la qarsado in qofkii uu ka baqdo bulshadii oo aanu sheeganin cudurkii taas miyaanay dhaqan soomaalida kusoo jira iyo xitaa in laysku caayo cudurrada maanu hayn mawlid xujaale khadku ka yara baxay waxaan su-aasha ku celinayaa doctor yuusuf inaga dhaqankeena laftigiisu miyaanu hayn mid inaga aynu xanuunka qarsanno oo aynu xanuunkii isku cayno mararka qaarkood oo aynu halkaa dhibaato badan ka galno bidhaad aan hordhac u sameeya waxaan idhi haddaynu nahay soomaali waxaa la yidhahdaa vulnerability ama nugeyl baynu leenahay oo dhinaca takooridda wuxuu ka imanayaa dhinaca diinta si qalada loo fahmay wuxuu ka imanayaa dhinaca dhaqankeena iyo sheekada kutirikuteenta waxa uu ka imanayaa arrimo kaleeto مثلا دين عدين هدين إجنا ساكا وحن فيرينا يي أنين عامر ونبني سامين توكله أمة الصوماليات لبنين أنين الباكة جراعية أو قفاعية يمد جودها كجرة جودها كجرة وفي قفاعي سعودر كيبا كوهيا طبعا كنا وكله عذر كانوا كمان دع مسلمين تجعلوا كل عاي إيمان كاجا ضعيف إجافر وحن دعوة النين شيخ وآدي آد منطقة الصومالية ولا السودان وقال لكم أي منطقة إفراعان وأرنا يا cudurka markuu bilaabanayay wana Soomaaliya gaarin ku diyaarad raacay oo adis tagay yiri gaalada Ilaahay baa naga asturay qarbuunkoodii iyo khamradii iyo wixii anaga muslimiina waxaan ma taqaanaa nama taabto marka arintaas waxay keenaysaa takoorid haddii si xun diinta ma taqaanaa loo fasiro dadkuna si xun bay u fahmayaan in dhaqankoodiina si xun oo qarriban ayuu ma taqaanaa u saameyn taas mid weeye talabaad qarsashada oo aad hadda soo hadal qaaday yes weliba raggu aad ugu sii badan yahay waxyaalaha u dhintaana qayb kamid ah weeye dumarku inta badan way hadlaan way sheekayaan arrimaha waxay fududeeyaan immunity ama waxa la yiraahdo manaacada ama difaaca jirka way adkeeyaan laakiin raggu ma taqaanaa way qarsadaan waan gartay doctor yuusuf waad mahadsan tahay waan kugu soo laabanaya mawlid xujaale ayaa khadka imika kusoo biiray mawlid soo dhow mar labaad raalli ka hada hawada naga yara baxday mawlidow xagga saxaafadda soomaalida sideebaa dadkii loogu sheegi karayaa inaanay xanuunadii qarsanin ama cudurradii ama aanay isku caayinba waayo intaan cid kaleba soo gaadhin soomaalida dhexdeediibaba hawshii weyneed ka taagantay baa la leeyahay mahadsanid bidan waa arrin muhiima laakiin waxaan rabaa waxyar in annaga oo ka fiirsanayna inaan maaragtay soomaalidii dhaqan ahaan iyo maaragtay diin ahaan loogu eedeynayo inuu bahalka faafidiisa uu saa ugu bato haddana waxaa la rabaa inaan ka taxadirno maadaama waxaan wax dadka ku cusub iyo baaritaan badan ay socdaan isla ingiriiskan haddaan ka hadlayno oo waddankan in ay dowladdu baarayso sababta ay dadka madowga iyo soomaalidu ay ka mid yihiin ugu badan yahay waxaana taa hoos imaanaysa in dadkii ay haysan guryo ku filan in dadkii meelo ciriiri ay ku jiraan in dhaqaalihii iyo caafimaadkoodii iyo wixii horena ay kala siman yihiin dadkan kale marka arrintaa guud oo ma aragtay saamayntaas oo dhanka dhaqaalaha iyo guryaha iyo fuquuqa dhanka dowladda guud ahaan ka jiro waxaan isleeyahay iyadana waa arrin muhiim ah inaan ka dhawaajino oo aan tilmaamno hadda wariyaalnahay laakiin marka annaga isku soo laabano Soomaali ahaan waa run dhaqamadaas iyo takorkaas lagu jiraa waxay ka soo bilaabatay waagii TB-shada faafi jirtay TB-da HIV AIDS-ka cudurro kale oo jiro waxaa jiro saasoo kale Soomaalidu ay isku caayaan marka hadda annaga taas Soomaali iyo qurbahaba way saameyn weyn bay ku leedahay waan gartay marka hadda inaan ka fiirsanaa isleeyahay markaan qiimeynayno qaabka ugu faafay qurbaha sida Ingiriiska iyo Sweden iyo inaan shaacino in Soomaalida ay ka mid yihiin dadka aad maaragtay dowladda ay uga seexatay xagga guryahooda iyo caafimaadkooda iyo waad mahadsan tahay waxaan isinayaa gabagabadii doctor yuusufow maxaad ku talin lahayd xaggan takooridda mar hadduu adigina kugu soo dhacayba cudurkii takooridda iyo faquuqidda maxaad ka odhan leedo xal u noqonaya dadka waan soo gudbinaya hal kalimaan ku daraya oo mawlid la xiriirtay runtii qalabka mataqaanaa warbaahinta qayb weyn u ka qaatay faquuqidda social mediaha si xun buu mataqaanaa u fasiray sheekayo xun iyo fikirkuteen baa la isweydaarsaday marka dhib weyn ayaa runtii arrintaa mataqaanaa ka dhashay hosbitaalada lama tegi karo lagu dilayaa waxyaalo badan oo runtii waxaa dhashay faquuqidda mataqaanaa keenaya w markay saa ka hadlaysay oo HIV la isku xiray
la yiri sida cudurka aidisku iyo cudurkan u sii joogi karaa dadku haddayna wacyi badan qaarkood lahayn dadkoo dhan ma wada ah aids iyo waxay isku xidhayaan cudurkan marka qofkii wuu ka cararayaa dhinaca talada iyo sidii looga hortagi lahaa marka koobaad waa dadka dhakhaatiirta ee waxaan aqoonta u leh horta in la dhegaysto waa arrin u baahan dad aqoon leh inay mataqaana ka hadlaan dhakhaatiira ayaga arrintaa looga dambeyn haddaan waxyaalo kale ku daro dadku waa inay cudurkan u arkaan mataqaana caadi noloshooda waa inay caadi mataqaana u wataan waa in shaqadoodu ay mataqaana noqoto caadi waa inay barnaamijyo mataqaana samaystaan ay wax daawadaan qoyskii iyo waan gartay dr yuusuf waqtiga ay nagu soo yaraaday dr yuusuf oo igaga soo biirayay south hall oo culunta mujtamaciga ku takhasusay iyo wariye mawlid xujaale oo isna kilban igaga soo biiray london labadiinuba aad baa u mahadsantihin adiga mudan badaan barnaamijkeena caawiya caalamka oo anago cabdiraxmaan badhaan aan idinla socodsiinay intaasu ku dhan yahay dhammaantay waxaanu idin leenahay waa mahadsantihiin daawashadiina inta aynu mar kale dib u kulmayno hadduu eeba idmo berri waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo